عاو عاد كان إيمان عاو عن فلك بدأنا من فلك سوء محمد البوشري وحيانا بعد قصة قوتي من يرو فايدة لكن وحنا قال بري عليه عرفت عنا نقول وعاد كولا يعني هذا البلد هنا أنتي وكواليتي ليش بكواليتي كانوا مدة فرق جوي أنت وحنا مغلاي هذا الكلام فرق ميل بعض كان كان ينتفع من بعض الوقت اللي فيها إلى عرفت وكان وزير وفافنت إلى وقدم بيت بقات وحاصل يعني هذا أرماء الصومالي سن هذا المهم سيبتي وقدم بيت إلى كتكتن عصمر مرة ورجينا يعني تدروا عن keep up the good work لا يكابر مريض تاس وين تاس سؤال بره منها قويدي وعلى صعدتها جيدي ما أنت واسع عسير ما ولا عسل لا والله جدي حدو عصمر إما إلى الصبح يقول يا بحرين دويرة محل حاجة سمعيني سؤال ويدي سؤال ويدي سؤال dadka dagaalku qaar basi dagaalku dadku waxay u haystaan inuu midka xabadda la ridaayay yahay dagaalku 200 oo nooc oo istaageeraya weey qalinkaas aamina sheegayso waa dagaal weyn oo muxuu ahaa dad badan saameeya mudaharaadka la sameeyo iyo public opinionka muxuu ahaa lagu soo jeediyo dadka iyo idaacadaha laga hadlayo waa public waa dagaal dhaqaalaha la bixiyo waa dagaal xabaddu waa qayb ka mid ah laakiin kulligood waxay u shaqeeyaan xabadda markay xabaddaas wiilka ridahaya hadduusan intaa helin ma guulaysanayo marka waxaan ay orgiyo kulligeen waxaan idinku boorinayaa inaad timekiina siisaan soomaaliya walow 2 saacna maalinta allah ka dhiga way istaahishaay 2 saacna allah ka dhiga haddii la isu tegayo tagtaan meesha la tegayo caawa waxaanu tagnay function oo Islamic month ما هي كان Islamic history month ان dad badan baa yimid muslimiin arab hindi pakistan afghanistan waxa soo dhan baa yimid iyo gaalo I'm sorry inta yadii meesha muxuu ahaa lawyerku uu nagu ballamiyay oo aan rabnay inaanu dadka ugaarsano muhiim oo meesha imanayay kaliya un baan nimid Soomaaliya meelaha soo kala tagtaa meesha magacayga baa laga sheegay Soomaaliya iyo dibta haysta laga sheegay dad badan baa maqlay oo ama xoolo haysta oo hadhow donation ku sameyn kara ama dawladda decision makers ku jira oo maayarkii baa joogay Jag Layton baa joogay dad MBA badan baa joogay senator joogay maalin dhaw sabtidii midkii aan tagay raaliga ahaa oo 1800 ilaa 1500 ilaa 1800 qof baa timid cid aan joogin mala Soomaali maahan waxba nagama maqnaba hadii ay musiibada ugu weyntaa weey wax ka maqanba ma jiraan markii aad Soomaaliya ka hadlaysidna waa qaybsantoo fadhi ku durar baa fadhida markii la rabay in wax la qabto oo meelaha wax laga qabanayo la tagana waad maqanta this is disaster ummad halka gaartay qabsiga waxa ka daran ummaddu inay halka gaarto oo aysan ogeyn waxa haya iyo kuleelka haya intuu leeyahay ya marka anigu horta taas aan idinku baraarujinaya reer Ottawa hadaatiin dardar cusub faadumo الخير الله شيء شغف عم بقبتها اسكو حرمة ولا شقية أنا وحرمنا هل كان عد وكيل محاها ونقطة سومالي محاها عنده إسبهايسيا دو حرين الصوماليات وأف يقدم بوجا نقطة مغلسة وهدنا لا له coordination network ورنا تشرو أسيدا كم فاضوا ملاحظة كتاي سومالي SDN كينيا كويا سيدا مدة عمان لو واحد وسمي بالكي أنا problem كان هاي استوى هو institution ما oriented جالسين و individual بان هاي لكن هذا سيدا إنه أسمره وجولي سنة إن an institution سمينه إذن كنا بهاش institution كذا سيدا إنه إثيوبيا ضعيف و very weak أنا قاعد strong هذا من استعمال البوتنشال سكر وحسوها سؤال شيء ويدي سي والله إني هرتا waxaa la yiraahdaa toobada ilaahay baa iskale oo aqbala qof gaala
oo muslimiin baa ilaahay ka aqbalaa laakiin xuquuqul insaanka nin cafin karaa ma jiro qofna ma cafin karo cali geed wuxuu ku faanaa ciidamada Ethiopia anaa keenay Cabdullaahi ma keenin ku faanaa I was present I was in Baydhabo systemka Baydhabo aan ka tirsanaa anu asaga qada sidaas ku leeyahay baan soo ku faanayaan cali geed xaafado dhan buu inta calaamadeeyay buu yiri hala tirtiro iyadii waxa degan ma maqlaysaa dambiga intaas la qof galay inna ma cafin karo laakiin cali wuxuu galay crimes cali wuxuu galay Cabdullaahi wuxuu galay crimes against humanity his own people markii laga soo tago sovereignty ay dhiibeen marka annaga aan dawladda aynu 15 sano Israa'iil oo qabaa'ila oo warlooradii ugu xumaa joogaan oo magacyadooda aad wada taqaaniin baan Ethiopia dalka iyaga haysan ama caasimadda haysan way caasimadda important u tahay meelay soo gali jirtay waa ka carri jirtay way legitimacy ma aysan haysan oo dawlad wax isku sheegaya dalka ma soo gali ummadda Soomaaliyeed diyaar uma ahayn marka in muxuu ahaa bash cid waday soo gelinaysa ma jirto kuwaani qoryahay ka qaadan jireen say iyagu isugu laayaan adigu noo imo wadanka ay qaba ma dhig the last simple calaamadii ugu dambeysay state-ka way waxay qabsatay state-ka waxa la yiraahdaa 5 tiir buu leeyahay state-ku oo caasimadda ugu muhiimsan tahay oo caalamku ka mid yahay oo magacu ka mid yahay waxa kale oo dhan waa irrelevant caasimadda ugu muhiimsan tii u dambeysay ay qabsatay so ninka taa keenay oo xamar inta Ethiopia keenay yiri ii qabo dadkana ii xukun ha yiraahdee ilay dadka ma afin kartaa su'aasheedu waxa weeye hadba qofka ku rabaa noqdeen ninka kula diranaya oo aan xaqaan u ogolayn islaamtinimo iyo dadnimo toona inaa jilid baa ah in lala dagaalamo mise gaala keliya la dagaalamana markii wadankeena soo gala horta qofka iska daaya ra'yigiisu leeyahay laakiin waxaan neutralna naga noqon karin la iskuna khilaafi karin baa jira hadda yiraahdo tuugo culture kasto adduunka kamid ah tuugnimadu waa wax every culture ya kufsi every culture waa wax anu mana arag mana maqal ummad weyslaysa civil warada caalamka dhan ka dhacay tii u dambeysay waxay ahayd Rwanda ahayd oo adogeedo 1 million ku dhimatay dawladda isbaabiyay dawladda Japan over 500,000 people baa hal subax la dilay oo lagu riday Hiroshima iyo Nagasaki laba dawladood adduunka isugu fiican weey hadda maxaa Japan iyo anu ma garanayo wadaadkan waxa uu goconayo dadka Soomaaliyeed civil war baa ku dhacay waa islaayeen musiiba ku habsatay regime dictator ah oo haddii la ku ron yahay xumaaday waagi bilowgiisii horena fiicnaa markii dambana dagaalo uu galay iyo qabyaalad iyo wax la mid ah weliba mu'aamarad Ethiopia ninka hadda adigu aad koolkoolinaysid ay recruit garaysay oo ay ka dhigatay jaajuus ka bacdina jawaasiis badan ay raadkiisii raaceen mu'aamaradaas buu ku burburay qarankaas mainly taas ay wax ugu weyn anuu waa saxan karay waxyaga waa saxan karay there is no doubt in anuu gaalka ayaan ku dhashay kuna soo koray aniga adigu hadaan gaalka ay ku dirro aniga adiga ale waana ku dirir karaa nin iyo caruurtiisa iyo naagtiis baa dirira laakiin xaqu ma leeyahay intaan xuduudda ka talaabo oo aad sabab tago taangiyaal Ethiopian inaan ku soo kaxaysto bal ku yaala